السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو برنامجكينا إنو كاga hadli jirnay caafimaadka. Magacaygu waa Dr. Cabdullaahi Sheekh Abdiraxmaan. Kusoo mar labaad iyo mar saddexaad ba channelkaygan. Haddii aad ku cusub tahay subscribe gare. Maanta waxaynu ka hadlaynaa xanuun goiter loo yaqaano qayb ka mid ah oo hyperthyroidism la yiraahdo. Kusoo dhawow aynu eegno sidii caadada ahayd muxuu yahay goiter iyo definitionadiisii iyo xanuunkii aynu u galo ka goiterkaasi waa maxay goiter macnihiisu waxa weeye qanjir ku yaala halkan cunaha dushiisa oo barara qanjirkaasi ayaa bararka uu sameeyay enlargementka uu sameeyay ayaa loo yaqaanaa muxuu ahaa goiter. Haddaba waxay keena xanuuno kala duwan ama ha noqoto hyperthyroidism ama hypothyroidism ama qofka oo iodine ay ka maqan tahay ama xilliga pregnancy-ga iyo xilliga qaangaadhka ba ha noqotee xaaladaha ayuu bararaa oo balaadha. Kamaanta laakiin aan dul istaagana waxa weeye nooc loo yaqaano hyperthyroidism oo ah in uu qanjirku sii deynayo muxuu ahaa hormoonadiisi mid kamid ah oo overproduction uu ku sameynaya ama uu soo deynayo intii loogu talagalay in ka badan. Haddaba qofkii markuu xanuunkaasi ku dhaco ama uu ku soo socdo muxuu ku garanayaa intaanu bararkan xataa arkin. Waxaa suuragal mararka qaar inuu barar weyn ba arag laakiin ay xaaladan hayso. Qofka waxaa ku dhacaysa hurdo la'aan, waxaa ku dhacaya moodkiisa oo isbedbedela. Waxaa laga yaabaa inuu qofkaasi kulaylka xilliga kulaylaha ama meel kulul markuu soo galo uu adkeysan waayo. Waxaa kaloo laga yaabaa qofkaasi in uu mar walba warwar iyo xaalad warwara ku jiro ayna xaaladiisu deganayn, garaaca wadnihiisu in uu mar walba aad u sareeyo. Waxaa kaloo suuragal ah inuu loos gareeyo weydkiisa ama culayska jirkiisa miisaankiisii inuu lumiyo muddo yar gudahood. Adigu inahaasa ugu muhiimsan. Markuu waxyaalaha qofku isku arko xaaladiisii haddii uu wax ka qaban waayo marka uu dhakhtar u tegi waayo oo xaaladiisi la diagnose gareyn waayo dawooyinkii ku habboonaa ama kolba xaalkiisu halka uu taagan yahay la siin waayo, waxaa laga yaabaa inuu qofkaasi xaalad u gaadho inuu qofkaasi nooc waaliya oo kale u gaadho oo ay dadka qaar uba haystaanba waxani inuu keeno ama uu ka dambeeyaba nooc jinka ka mid ah qofkaasi heblaayo waalatay hebel waashay ay xaaladu ku dambeyso. Haddaba hadduu qofku xaaladaha isku arko, xaaladahaasi oo ay ka mid yihiin kow inuu hurdo la'aan ku dhacdo, moodkiisu isbedelaya ama habka uu qofku u fikirayo, ay ku dhacdo anxiety-ga iyo qofku inuu mar walba warwar ku jiro, weyd fara badan u lumiyey, kulaylka aan u adkeysan karayn xilliga summer time-ka ama sayfka, qofku hadduu badbakh gala ama meelo kaloo kulul u dhibsanayo, mar walba dharka uu huwan yahay ama hadduu koor yahay ama waxaankaasi ay aad u dhibayso, uu yahay qof ku raaxaysta xilliga qaboobaha waxyaalaha. Hadduu isku arko waxaa xanuunkaasa suuragala inuu hayo, waa inuu dhakhtar u tago si hormoniska loo eego inay sax yihiin iyo in kale. waxaa hoos yimaada oo iyadna nooc ka mid ah ama Graves' disease la yidhaahdo oo isna noocan overproductionka qayb ka mid ah uuna ah. Nooca waxaa kolley keenaa muxuu ahaa autoimmuneka difaaca jirka oo isaguna weerara muxuu ahaa dee jirka intiisa kale. Waxaa kale oo suuragala in uu qofkaasi muddada uu hayay ay ku dhacaan wax la yidhahda nodules oo isku arko kuusas yaryar ama nodulo yaryar oo ay soo baxeen tissue-gii ama qaybtii glandkii ama qanjirkii ku yaalay cunaha qayb ka mid ah oo dheeraada inay soo baxday oo extra tissue wax la yidhahda ay jirto, ama inay qofku qaataba dawooyinka qaar iyadna way keenaan, amiodarone dawo la yidhaahdo oo kale iyadna way keentaa. Isku wadagee qofku xaaladaasi hadduu u galo waxaa muhiim ah inuu si dhaqso ah dhakhtar ugu tago si uuna xanuunkani ugu sii weynaan, oo aanu xataa haddii uu barar yar dareemayo halkan ama kuus yar uu ka dareemayo cunaha aanu sii weynaanin qanjirku. Waayo hadduu sii weynaado wuxuu kuu keeni doonaa inuu naqasku ku dhibo, in codkaagu isbedelo,
in markaad wax cunayso wax aanad cuni karin oo cunuhu ma garanaysaa uu ku xidhmo waayo waxa weeyaan markuu weynaado cunihii uu riixaya ayuu xidhayaa. waxaa kaloo suuragala codkaagii iyo hadalkaagii iyo waxaagii dhan isbedelaan xaaladaaduna ay kasii xaalad adag sii gasho. si haddaba ayna xaaladaasi aanad u gaadhin waxaan rajaynayaa inaad talooyinkan qaadato waa si dhaqsaa dhakhtarka ugu tagto si loo ogaado hormoneskaagu inay saxsan yihiin iyo in kale. insha allahna waxaan rajaynayaa inuu ilaahay dhammaantiin xanuunada inaga seef gareeyo. sidaas iyo is arag dambe iyo ismaqal dambe oo xiisa leh. qofkii aan idin xasuusiyo qofkii ku cusub channelka ha subscribe gareeyo hana gaarsiiyo cid kasta oo aan cilmigan hore ogeyn. dhammaantiin waad mahadsantihiin daawashadiina iyo waqtigiinaba. wasalaamu calaykum waraxmatullah.